بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستر فيكتوريا سيمبر قاياش. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم أنت السميع المجيد. waxaan soo sheegareeyay hadda oo rabaa dhalinyarada inaan kelmad u micneeyo. Waxaa is aruursaday rag afminshaara ah oo odayaal isku sheegayo oo dhaqameed isku sheegayo malaaqiyo isku sheegayo oo ahaayeen tuugtii berigii isbaarada dhigatay. waxay ahaayeen dadkii muqdisho burburiyay. waxay ahaayeen dadkii hantidii dalka qaatay ee dawladdu waxay lahayd. waxay ahaayeen dadkii hantida shacabka qaatay. waxay ahaayeen dadkii mooryaanta ahaa ee maanta muqdisho aqalada dadka masaakiinta ah iyo yatiimta ay leeyihiin ku jira weeyaan. waxaan rabaa inaan u soo jawaabo odayaashii halkaa ka hadlaysay, ninkii malaaqa isku sheegayey iyo ninku bad cayaar jiro muxudiin darba weyna la dhaho oo aan si fiican u garanayno oo intay dowladahan la soo maray hawiyaha dhan musuq maasuq iyo isboorti aan jirin ku shaqaysanayay ee waddanka boobe ee lacag ka sameeyey. marka waxaan nii sheegayaa odayaashu waxay yidhaaheen banaadir waxa iska leh yoonis galmaax miyamu wax saasuu yiri. wuxuu yidhi banaadir waxaa iska leh yoonis galmaax, banaadir waxaa iska leh mudulood. horta waa kala qaadayaa kelmadda mudulood la dhaho. mudulood soomaali dhan baa mudul ku nool oo aqal soomaali miyi iyo magaalo soomaaliya mudulay ku nooleen. dhoobeyna waxay ku noolaayeen carshaan. taa horta waa taa mudulood haddaad tiri soomaali dhan waa mudulood. kelmadda banaadir waa banaadiriga. banaadiriga waayo waa shan shingaani afar xamar waa la ogyahay. banaadirigu waa dadka cadcad ee alindigii xiran jiray ee dharka toli jiray ee magaalada sheekhan jiray. raggan kale ee maanta muqdisho sheeganay raggani waxay keeni jireen coos iyo biyay dhaamin jireen, dameeraaley ahaayeen. marka waxaan nii sheegayaa ninka markuu xaq doonayo horta waa inuu xaqa ummadda soo celiyaa. xaqa banaadiriga waa inuu soo celiyaa. waa in xamarweyne laga baxaa. waa in shingaani ujeejeen ka baxaan. waa in boondheere laga baxaa. waa in cabdicasiis laga baxaa. intaas weeyaan waxa banaadiriga la dhaho. waxaa soo raaco banaadiriga waa reer baraawe hadduu yahay, hadduu shaanshi yahay, hadduu camuudi yahay, hadduu heer faqi yahay, hadduu baafadal yahay, hadduu heer shiikh yahay, waa la garanaya. kelmadda banaadiriga waa xamar cadde iyo xamar daye. taa waa yeeli karaa. maxaa dhacay? agagaaraha gobolka deexda meesha la dhaho ilaa afgoy markii ugu socdo baali caddaa dego, wacdaan baa dego, waxaa dego abgaalaa dego, intiisa badan baadiyo u badan. marka waxa waaye banaadiri markaad maqashid semua anigoo kale weeyaan. waa inuu sax u caddaadaa. waa inuu nin waxbartay yahay. waa nin ilaahay ka baqaya inuu yahay. laakiin markaad tidhahda banaadiri ayaa lamagoodle ma yeelino. lamagoodle waxaa la dhahaa dadkan madow ee muqdisho soo degay ee imaan jiray usoo shaqo tegi jiray laba maro cadoo baati ay wadan jireen ilaa 47 ku feerqaamnaa abgaal oo biyo shubay. marka midaan nii sheegaya banaadiriyaa leh daaqaan waa reer banaadir. maxaa dhacay dheh? waxaa lagugu aasayaa magac hooyada. ani waxay dhashay zahra amiin oo la garanayo oo camuudidiin ah. banaadiri waa dadkaa cadcad ee meesha loogu yimid. waa dadkaa cadcad ee dadka kabiya dhar u geliyey. waa dadkaa cadcad ee dadkan baray sida laisku guursado. marka waxaan nii sheegayaa sheekh suufi waad taqaaniin, wadaad weynu ahaa. marka way dhammaatay waagii isbaarada. way dhammaatay waagii isbaarada. banaadirigana wuxuu ogol yahay banaadir waxaa leh inta soomaali sheegato. waa caasimadda. caasimad reer ma yeelan karo. annagana maba rabnaba inaan reer yeelano soomaali baan nahay. marka waxa waaye nimankan waxay war ka la'yihiin. waa dhammaatay waagii isbaarada. waa dhammaatay waagii mooryaanta. waxaa bilaabtay waagii tuugada la xisaabin lahaa. waxaa bilaabtay waagii xaqa laga qaadi lahaa nimankan mudulood sheeganaya. markaad ka bixaysiin baraawaad ka bixaysiin xamaraad ka bixaysiin mudulaha sheegaysiin ku naqda. dadka u daaya dhulkooda.
dadka ku shaqeeya ummadda waxaa la yidhi saddex way ka dhexaysaa daaqa dabka iyo biyaha saddexdii maanta ummaddii waa u diiday beerihii shacabka aad qaadateen webiyadii ayaad gateen nin habargidir webigii ilaahay marinay ayuu dadka biyo ka gaday muqsulihii masaajidkaad kursi dhigateen lama isjindoon karo ninkii dhisana wuxuu ahaa uun lahay masaajida xamar u badan muqsulihii yaad ijaaraysiinad $1 keen leedahay muqdisho markaad galaysa marka waxa weeyaan way riyoonayaan nin walba intuu TV soo istaago oo yidhaaho galmaaxa muqdisho leh banaadir waxaa leh banaadiri banaadir waa la garanayaa banaadiriga waa dadka cadcadee arqaamada leh waa dadka cadcadee dukaamada lahaa waa dadka cadcadee dadka soo dhoweeyey waa dadka cadcadee sharaftii bilicdii jasuurka muqdisho dhisay waay haddaad mudulood tahay mudulkaagaad aadaysaa xamar mudul laguma yaqaano xamar mudul laguma yaqaano xogaa baraakamado ayaa jirto madiine meela laakiin xamar mudul laguma yaqaano haddaad mudulood sheegataba xamar shaqo kuma liid baadiye iyo miyaa shaqo ku leedahay marka waxaan leeyahay astala victoria sempre qaqayaash ilaahay dulmiga wuu diiday dulmiga daaya nimankaa reer xamarkii cadcad xaqooda siiya nimankaa banaadiriga ah waxaa la yidhi yaa diyuuf kun muta'addab ma aha inaad naqatid diyuuf tuug ah oo raba nin gurigiisa inuu qaato taasi waa diidin darba weynena waa la garanayaa waa tuug shilin muu haysan howladaag markuu deganaayo si fiican u garanaya marka waxa weeyaan tuugo is aruursatay ee cimaamad soo qaadatay koofid gashatay dhahday mala aqaanahay waa dhamaat waxaas maanta dowlad baa jirto oo aan leenahay xasbi allah wa nicmal wakiil maanta baarlamaanka waxaan odhanayaa dowladda wasiirka xasan khayre uu keenay waa sax nin wax ka maqan male dowladdu ha la ciido dowladdu wasaaraddeeda see soo dhisatay ha loo daayo dowladda shaqaan loo daayo 4.5 ii qabiil waa laga baxayaa dastuurka waa la saxayaa marka waxaan leenahay waxaan u sheegaynaa madaxweyne farmaajo waktigiisii waxa weeyaan maxamed amiin waktigiisaa lagu jiraa maanta way dhammaatay tuugada shirshira ama shirshirine banaadir ma lihidin banaadir yaa leh laakiin banaadir maanta shacabka soomaaliyeed oo dhan buu ka dhexeeyaa waa caasimadda iyagaa usoo duubtay usoo laalaabtay haastala victoria sempre qaqaayaasha